afka rasmiga ee dalkuna af Soomaali marka af Soomaaliga asan ku oranayaa labada eray aan oranayo waxaan doonayaa runtii inaan uga mahadnaqo oo aynu ku amaano hay'adda afooyinka iyo kaydka cuntada inay noo qaab lagu ogaado oo lagu faafiyo marka dhibaato soo socdo intii aynu ogaan karno cilmiga uu inoo saamaxay ama adduunyadooda imika hal meel noqotayba aynu cilmigood iyo qalabka adduunyada kaleba laga faa'iideysan karo marka maanta xafladani waxa weeye inaynu furno qaybtii labaad ee nidaamka digniin horaada ama early warning system oo ka kooban oo lagu qeexay oo ka kooban oo la yidhi waa afar maaragtay tiir weeye ka koowaad oo ah inaynu aqoon u yeelano ama dad loo tababaro early warning systemka bay noo sameeya ka labaadna waxa weeye inaynu la soconno oo aynu si joogtaa indhaha ugu hayno dhibaatooyinka soo socda ama waxa inoogu badan inaga maaragtay abaaraha waxa dhici kara duufaano waxa dhici kara cimilada isbedelaysa waxyaaba aynan hore u aqoon baa ayaa xitaa ka dhacaya oo maybe laga yaqaanay adduunyada kale meelaha qaarkood waxaynu naqaanaa inay si joogtaa uga dhacaan dabaylo xoog leh tornado ama haddii kale dee masiibooyin badan nimca waliba nusqaateed la bari marka meel kasta cimiladeedu waxna way ku wanaagsan tahay waxna way ku xun tahay inaga laakiin tay noogu daran waa abaaraha iyo duufaano dee marar dhacay iyo daadadka waxa kaloo dee noqon karaba wax bini aadanku sameeyey digniinta hadday meel colaado iyo rabshado meel hadday ka dhacayaan dee saameyn bay yeelanayaan waxa ka mid oo kale marka in xogta la gaarsiiyo dadka cidda qusayso berigii tusaalahan hadday meel abaari soo socoto oo la saadaaliyo inaanu roob da'ayn guga de waa in loo sheego dadka inay abaartaas soo socoto sidee loo gaarsiinayaa xogta weliba dadka gaar u qusayso reer miyiga xoolo dhaqatada beeraleyda sidee loo gaarsiinayaa iyo marka dambe sidaynu ugu diyaar garoobaynaa wixii ka soo baxaya marka waxay ila tahay in shaqaalaha hay'adani ay aqoon u leeyihiin oo ay isku hawli doonaan inay si joogtaa ula socdaan iyagoo xarunta iyo qalabka loo dhisay waxaanaynu aad ugu mahadnaqanahay oo kale hay'adihii gudoomiyuu sheegay Save Children iyo Oxfam WFP iyo hay'adaha kale ee inagala shaqeeya hawsha marka ugu dambeysana waa inaynaan dee hay'ado ku tiirsanaanin aynu u shaqeyno inaynu lugaheena ku istaagno waxaan xusuustaa oo hay'adan kala shaqeeyay berigii saqarku dhacay maartay duufaantaasi dhacday ee warbixintii la qorayay marka waxyaabihii aan isweydiinay waxa ka mid ahaa oo tan oo kale ama mid la mid hadday dhacdo dadkeennii iyagoo iska hurdo uun ay baash ku dhacday ee xoolihii iyagii baa qaaday sidee loo gaadhsiinayaa ninka buuraha degan ama xeebta agteeda degan ama bananka degan ama meel kale Soomaaliland degan haddii halis noocaas soo socoto TV waxa laga yaabaa inaan u dhageysanin internet iyo Facebook iyo waxa wararka laga hadlaya hadaanu fursad u helin sidee loo gaadhsiinayaa waxa kale oo jirta aan isleeyahay anigu de markay wax dhacaan waxa maskaxdaadu weyn ka fikirto wax kale oo aad curin la timaado haddii imika hargeysadaynu joogno ilaahay naguma keenaa magaalooyinka kale la yiraahdo dabayl wax baabiinaysa soo socota dadkeena waa adiga yaqaan waa ilaahay baa qoray waa run ilaahay baa qoray laamidaba waa adiga aan seexanayn ee baabuurta iska eegaya tanna de iska eeg intii taagtaada marka sidaynu ugu sheeginaa haddii aynu u sheegnay oo ay qaadan waayaan maxaa talaa maytan waxaan oranayaa waaran waanu sheegay dawey maqli waayeen may wali dawladda iyo mas'uuliyiinta mas'uulka
adduunyada kale waxaynu ku aragnay in anfaca waa inaynu qaadano meelaha qaarkood sharciya la soo saaro waxaan rajaynayaa in hay'addu soo saarto sharci ah haddii digniin lagu siiyo noocaas oo lagu yiraahdo ilaa halka dabayl ama duufaan ba ku soo socda qof kasta waa inuu ka baxo oo hadhow lagu yimaado lagu xidhi karo meelaha qaarkood 2 sano loo jaraa waa carruur yar iyo waxaad haysataa daadu haddaad naftaada haligayso carruurteena haligi laakiin waxa la rabaa in dadkeena si tartiiba heerkooda inagoo kula soconna de lagu qanciyo war hadii waxa kale oo kamid ah hadii abaari soo socoto kayd ma dhigan karnaa hadaynu aragno meel khilaaf ka soo socdo digniin dadka ma loo sii diri karaa hadaynu dhul gariir la sheego maxaynu sameyn karnaa waxa ila tahay afarta tiir marka hay'adina waa taa inoo dhistay oo dawladdu ay samayso qayb dawladda kamid ah systemkiina ama inagu hay'ad kaashanayna marka waa inaynu sii curino aynaan cid ku tiirsanaane ninka xeebta jooga ama hawdka jooga saqartaas ku imanayso saqar dhaxay isagoo iska hurdaysiga xoolihiisi sidee ugu sheegayaan ugu qancinayaa meeshan masiiba ka soo socotee ka car berigi waxaan ku fakari jiray bahala booliska oo kale miyaan la isticmaali karin oo la oran karin inta xeebta la maro siren-ka la yeedhiyo meel walba mise tuulooyinka lagu shirin karaa tuulo kasta inta la shiriyo oo dad ay maqlayaan oo sheekh iyo caaqil iyo ninuu maqlayo u dhagan nugul yahay inta loo diro la yiraahdo war meeshan masiiba ka soo socotee iskaga guuro ilaa halka taga deegaanka inoo taala marka waxaan rajaynayaa dhalinyaradan aqoon-yahanadii in ay sii curin doonaan siyaabo kale oo loo gaarsiiyo dadkeena maartay looguna sheego si ay noo rumaystaan oo ay mararka qaar kood waxaad soconaysaa waxyaabaha media laga sheego marabaan ay rumaysan dadku ay isaga arkaanuun maartay waxaan khusayninba laakiin dawo khuseeya marka lagu yiraahdo saqar ba ku soo socota dhulkaas de magacyo af Soomaaliyana aynu la baxno oo ay fahmaan dadku malaha waxa isleeyahay waxyaabaha mutacalimiinta aan aad loogu dhageysan waxa ka mid ah afreeyo af Ingiriisi ku dhex dareena markii laba af Soomaaliya dhahno marka hadda waxaad ka hadlaysaa fahmi maayo laakiin afkii uu yaqaanay waa inaynu ku hadalo oo fahmi karo aad iyo aad baan idinku maqnayaa de waxaan leeyahay maartay xaruntaana mid khayr qabto wax fiican ugu soo gudbisay Ilaahay nooga dhigo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayo. Assalaamu calaykum.